أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan kusoo dhex jiray casharkii tafsiirka qur-aanka kariimka ah waa casharkii 118aad suuratul kahfi aayadda 17 baa ka bilaabayna 17aad. ilaahay wuxuu subxaanahu wa tacaala watara shamsa idaa dalacat tazaawaru can kahfihim daat alyamiin waidaa garabat taqriduhum daat ashimaal wahum fii fawjatin minhum. qisada waxaan soo bilownay asxaabulkahfi iyada oo qisadu ay gaaban tahay baa lasoo bilaabay marka hore, kadibna waa la faahfaahiyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala ama xasibta ana asxaaba alkahfi waraqiimi kaanuu min aayaatina cajaban. haddana markay dambe naxnu naqusu calayka naba'ahum bilxaq inahum fidyatun aamanuu birabbihim wazidnahum hudaa. waxaa noogu dambeysay inay diideen ninkii boqorka ahaa ay yidhaahdeen maxaan ku dhahdaa, markay boqorka hor yimaadeenna ilahay qalbigooda xiray oo iimaanka u adkeeyey, kadibna ay diideen asnaamtii iyo waxaas ilahay keliyaan caabudayn ay yidhahdeen. qoomkoodiina ay yidhaahdeen asnaam bay caabudayaan caddeeyeen, daliilla uma haystaan bay yidhahdeen. kama dambaystii waxay yidhahdeen go-aan bay gaareen waid ictazaltumuuhum maa yacbuduuna ila allah, haddaad ka dheeraateen tolkiina iyo boqorkooda iyo waxay caabudayaan asnaamtaan iyo maa yacbuduuna ila allah waxay caabudayaan alla aan ahayn fa-u ila lkahfi godka u dulma bay yidhaahdeen. yanshur lakum rabbukum biraxmatihi, rabbigiin wuxuu idiin fidinayaa naxariistiisa, wayuhayi lakum min amrikum mirfaqa, arrintiinana ilaahay wuxuu idiin samaynayaa wixii waxaad ku nasataan oo mirfaq, yani waxa weeye aad maaragtay ku dhibaato beeshaan ayuu ilahay idin diyaarinaya. dhibaatada idin haysata wuxuu idinkaga saaro. rifqigu waa maaragtay qofkii oo dhibki ka baxa. ilahay wuxuu subxaanahu wa tacaala watara shamsa, marka godkii bay ku jiraan hadda. xaaladda waxa weeye sida ay go-aansadeen bay fuliyeen, tolkooda waa ka tageen iyo wixii ilahay qeyrka ay caabudayeen, godkii ay sheegeen bay galeen, ilaahna waa baryeen. rabbukum yani waxay ilahay godkaa galaya yashur lakum rabbukum biraxmatihi, hadalladooda say u fiican yihin u fiirso, wayuhayi lakum min amrikum mirfaqan watara shamsa idaa dalacat tazaawaru. haddaba godkaani sidee buu ahaa? culimadu aad bay godka aqwaashiisa u badan tahay, laakiin godku saddex midna ma ahayn, waa la isku raacsan yahay. inuusan godku meesha qoraxdu ka soo baxdo bari u jeedin, inuusan qoraxu dhac u jeedin, meesha qoraxdu dhacdana uma jeedin, samadana uma jeedin, god kor ka daloola ma ahayn. saddexdaa midna ma ahayn. ma waqooyi buu u jeeday, markay qoraxdu soo baxayso qoraxda gudihiisa geli mayso godka, markay dhacaysana gudihiisa geli mayso. marka ma waqooyi buu u jeeday oo dhankaasi u jeeday xagga, mase wuxuu u jeeday dhinaca kale oo sawdka u jeeday. culimadu afka waxay u badan yihiin, weliba nin doctor maartay aada uga diyaariyey, iyo culimada in badan waxay leeyahay xagga waqooyiga u jeeday. si kastaba ha noqotee meeshuu doona ha u jeeda godku, wuxuu caddaynayaa inuusan barina u jeedin, qoraxu dhacna u jeedin. qoraxda waa ka qarsoon yahay markay soo baxaysay, markay dhacaysay iyo markay dusha maraysa, inta waa ka qarsoon yahay. ilaahay baa arrintaa diyaariyey, laakiin qoraxdu afkiisa nacaw bay siinaysaayo iftiinkii waa arkayaan, iftiinkii waa la kulmayaan, nacawdii waa la kulmayaan. wataraa waad arkaysaa nebi allow ama ayahol mukhaadib, qof iyow lala hadlayo. nebiga qur-aanka nebigu ku socdaa, qof kastoo muslimana waa la hadlaya, si nebiga ula hadlayo ula hadlaya. wataraa waad arkaysaa rasuul allow ama qofka lala hadlayo ashamsa qoraxdii idaa dalacad markay soo baxdo tazaawaru iyadoo ka qooranaysa ama kala wareegaysa, ama tazaawaru iyadoo weecanaysa can kahfim godkooda ka weecanaysa ama ka qooranaysa daatal yamiini dhanka midigta ah, godka midigta ka maraysaa. yacni dhinaca midig waa yani bay ka maraysaayo godka afkiisa mari mayso wey. waydaa qarabad hadday dhacdana taqriduhum waxay ka tegaysaa daata shimaali dhinaca bidixda ah, dhinaca bidixda bay ka tegaysaa wey. wahum iyaguna fii fajwatin meel waasaca oo minhum godka ka mid ay ku jiraan wey. minhum min alkahfi godka ka mid ay ku jiraan wey. halkaas godku maataa dhahanayo qaar iyo kahfi way kala wen yihiin. qaarku waa gebi kooban, laakiin kahfigu waa meel gudaheeda marka la galo gudihii waasac sii yahay wey, meel guduhu waasac sii yahay wey. marka kahfigaasay ku jireen. sidee qoraxda marka waxaynaysaa godku marku hadduu waqooyi u jeedo oo kale, qoraxdii markay soo baxdo dhinacaan yani godkii darbigiisi baa ku aadan, gudihiisi baa ku aadan oo qoraxdii arki maayo. maxaa yeele qoraxdan waxaa looga qariyey, qoraxdu waxay cunaysaa dhalcadeedu waxay cunaysaa jirkooda iyo dharkooda iyo waxa meesha ay joogaan oo dhan ilaahayna uma talagelin. xataa markay soo toosaan lacagtoodii 309 sannadood
lacagtii sideedii bay ahayd oo dharkii ay xiraayeen sidiisii weeye oo jirkoodii waa sidiisii isbeddel ma leh ilaa ay shakiyeen mashalase warse hadda subax bay meesha galeen galab bay kaa kaceen waxay masaakay ahayd oo maalin barkeeda aad joogna mise shala subax baynu seexan xalay baynu salaadaa ayna ka tegin miyaa meesha yani maalin ama maalin gelinkeeda maalin dhamaystiran miyaa joogna mise maalin barkeed bay ku doodi doonaan وترى وأركيس الشمس قرحة إذا طلعت مركي صباحه تزاوروا إيضا كإيلانيسا مارت كلا حنيسا عن كهف قد كذا ذات اليمين إنك ميدك تيضا جوا عنيسا أما كقرانيسا وإذا قربت هذين عنا تغريدهم وحي كتجيسا إريات تزوارك وحي تزاور هذي محل وضع زورارك وقفك وعده ماشي لقوا وعده تغريدنا وحلا تقطع يدو جوينيسا أما كتجيسا أما تتركه وإذا قربت هذين عنا تغريدهم ويكتجيسا أنا مركي نعيسوي وإذا قربت هذين عيسنا تغريدهم ويكتجيسا ذات الشمال إلى عبد الحدا مركان إلى عقر راح نقول عنا قلت بدح وياهي أو مركي سين عيسو قلت وحكى قاعد قرح قلت بقى قاعد مركان أفكر كلمة وهم يجون في فجوة ميل واسعة كرجة فجوة فجوات بدي وميل واسعة أو بيكون جين والحال هم يجون في فجوة ميل واسعة يكون جين ومنهم من الكهف قلت كم ذا الكاس إلهي سبحانه وتعالى كنا قاليني هرداء السورين والدنيا ده واحد كسر أي مقلن كان مرنا أي مقلن لو قلت لي أي مقلان أي كلام أي جود ذلك أرين كاسي sidaas dadka loo nooleeyay ay nolosha ugu jireen 309 sano in nolosha noocaas ku jireen min aayati illah ilaahay aayaadkiisa kamid yahay arintaas aayaadka ilaahay bay kamid tahay man qofkii yahdii ilaahu ilaahay hanuuniyo fa huwa isaga al muhtadi midka hanuunsana sida nimanka asxaabul kahfiga ilaah ba hanuuniyay waman qofkii yudlil ilaahay u dhumiyo falan tajid u heli maysid lahu isaga wali hanuuniya wali u heli maysid yani ahad wali u noqdo xafiid u noqdo murshidan oo toosiye u heli maysid ahad wali u ah oo maaragtay xafida oo maaragtay arintiisa maamula murshidan oo hanuuniye u heli maysid toosiye u heli maysid waa sida ninka boqorka ahayo iyo qoonkii iyagu asnaamta caabudi oo wiilashaan inay laayaan rabay haddii diintooda u soo noqon way daraadooda uga carareen kuwaas ka mid ah way dadka lunsan waan hidaayada ilaahay la maagay وتحسبوا وادو ملاينيسا هم نمانك أهل كفية وتحسبهم دليلة أهل كفية وادو ملاينيسا أي قاضا إني سوت شيئا بعد موديسا والحال هم يجون رقودهم أي هردان أو جماعة سيئين رقدي قوي هردان مركا أي قاضا waxay indhaha isaa u kala hayaan yani neefta iyo indhaha isaa u kala hayaan dad soo jeeda la moodaya siday u hurdaan hurdaha ay aad iyo aad ay u tageen hurdo ma ku maashoodan وتحسبهم واحد ملاينيسا أي قاضا إني براروكسينهين وإنها سيأكل هياني إنه هردان سوى كذا بعد موديسا وهم بيجون الركود وين هردان أو النوم واحد كتير هردان أي وما شودينه أي محمد مقلي تاسروا وحويه واصيلا مقالك لقى أركايو ويكم مقانيسا إن المقالك إنه هذا إيو مركز في لسيدات سوى كذا موديسين أين هردانه أنا سوى كذا تشرين لنا عكلا عيد قفك بين آدم كواع أنت إلهي آيات كالأسمي ولا قد قدينيا ونقلب وان قد قدين هم تانوا واصحاب الكهف ونقلب وان قد قدين هم اصحاب الكهف ذات اليمين لنا عمل كتاب نربيني وذات الشمال لنا عبد الحلال نربيني markay muddo xaga u jiifaan ba dhanka kale loo rogay waarti insaanku xataa markuu caafimaadka iska jiifaba abaar markuu dhinac u jiifaba uu jecel dhanka kale inuu soo rogo tiiba marka dhulka yara jiifaan ilaahay anaga rogaynay dadka qaar waxa iyaga isku rogayay laakiin quraanku saama dhihin faacilku waa ilaahay nuqallib annaga rogaynay ilaahay ama malaa'ig hawada kasado ama iyaga maadaha galiya iyaga is rogayaan si kastaba ha noqotay ilaahay wuxuu yiri annaga rogaynay waa mucjizaadka ilaahay awoodda ilaahay ka mid tahay wanuqallibuhum asxaabul kahfi waanu gadgadiyayni ذات اليمين دنك بدكتا وذات الشمال دنك بدخ لما قدين سان عيد و خنين بالي بس لو غلي وكلبهم اي غودين باصد كيف بييبو اها دراعيه لبديس دمده هوره جيها هوره بالوسيدي ميشا فقاق هوره البابك ميشا الحر قفك خيريا البابك سو خيريا ميشو استاغو حطبده هورتيدا halkaas oo jeeyaha ku kala baxshay irida god kaafiga iridis hore ayuu saa u fadhiya saas uu martay jeeyihiisu banaanka saas u baxay u fidiyay marka haddii xayawaan ay soo maraan meesha ayga arkaan waa ka carareen xayawaan difaac buu yahay iyagu isaguna ilaahay baa ugu talagalay wa kalbuhum aygooduna baasidu kii fidiyay weeye diraacihi labadiisa dhudhun oo hore jeeyaha hore bil wasiidi albaabka meesha iridis ah ayuu ku fidiyay weeye fagaagana waa la yiraahdaa albaabka meesha hortiisa ana waa la yiraahdaa هذا الباب meesha qof sida waardiyaha kale ay meesha fariisay markuu waardiyaha qanayo kale law dalacta
haddaad daalacad alle wuxuu subxaanahu watacaala dad baa yidhahda ahlu kahfiga godad beena intay iska tagaan ahlu kahfiga baan u tagnayo waxbaan soo araragnayo ahlufaha kahfiga maba lagu dhaco gudihiisa in la galo aayaddaa diidaysa law iطalacta haddaad daalacatid calayhim dadka nebi allow iyo qof kastoo lala hadlayo calayhim dadka ahlu kahfiga haddaad daalacatid oo fiirisid ishaadaba ula tagtid lawallayta waad carari minhum iyagaad ka cararaysa ahlu kahfigii firaaran carar baad ka cararaysaa wey wala mulita waa lagu buuxin lahaa wey haddaad tegi lahayd wey law iطalacta haddaad daalacan lahayd oo fiirin lahayd calayhim korkooda lawallayta waad jeensan lahayd minhum iyaga firaaran carar baad la jeensan lahayd cagaha wax ka degi lahayd wala mulita waa lagu buuxin lahaa minhum asxaabu kahfiga rucban argagax iyo cabsi wadnaha ku fariisan markii baa naxdin lagu kusoo tuuri lahaa markaasaad fakan lahayd wey ilahay waa ugu talagalay in loo soo dhawaan meesha dhan baa meel haybad saarataa laga dhigay loo soo dhawaan mayo saasuu alih subxana watacaala marka meesha waxaa laga fahmaya awood ilaahay baa joogta oo alle subxaana watacaala ugu talagalay dadkan ilaa maalinta ilaahay ugu talagalo inuu hurdada kasoo kiciyo 309 sano inta ilaahay maalinta ugu talagalay hurdada kasoo kiciyo inaan cid usoo dhawaan karta la arag oo ilahay ugu talagalay waa arrin kamid a umuuraha ilahay wey subxaana watacaala wakadalika ilahay wuxuu yihi wakadalika sida aan hurdada ugu maashaynay oo aan hurdada dheer u gelinay kadalikadas fucuul mudlaqa hadal sheegay ku xiran tahay wey hadalkaas ku xiran tahay wakadalika sida aan hurdada ugu maashaynay oo hurdada dheer u gelinay baanu haddana bacatnaahum usoo saaray wey soo saaritaankaani wuxuu dhinac socdaa hurdada dheer aanu gelinay soo saaridaana anagaa iska lahayn seexintan anagaa iska lahayn wey wakadalika sida aan hurdada dheer u gelinay baan bacatnaahum asxaabulkahfiga usoo bixinay liyatasa'aluu inay isweydiiyaan asxaabulkahfigii baynahum dhexdooda wari misayna hurudnay su-aalaha inay isweydiiyaan mufaacala wey yatasa'aluu liyatasa'aluu dhexdooda inay isweydiiyaan baynahum dhexdooda inay isweydiiyaan in misayna hurudnay oo kale ay yidhahdaan qaala wuxuu yihi qaa'ilun mid hadlaayo oranaya oo minhum asxaabilkahfiga ka mid ihi kam imisaa labidtu meeshaan ku nagaydeen imisaa meeshaan ku nagaydeen qaaluu waxay yidhaahdeen labithnaa waxaan ku nagaanay yawman maalin ow amase bacda yawmin maalin gelinkeeda ayaan ku nagaanay maalin baan ku nagaanay mise maalin gelinkeeda waa sida haddaan soo tilmaanay haddii ay ula jeedaan hadday u qaateen galab bay kaceen baa layaha subaxna waa galeen meesha hadday ula jeedaan maalin gelinkeeda waa haddii saakaynu gallo maalin gelinkeeda ku jirin welina gabalki ma dhicin waa maalin gelinkeed maalin qaarkeed hadday ula jeedaan maalin dhanna waa inay shalay subax baynu gallay saasoo culimadu yidhahdeen intaas maalin qaar baa tafaasiirta waxay kutubta ka buuxiyeen timihii iyo cidiyihii maaragtay marka la leeyahay argagax baa qofka ku dhacaya meesha fiiriya iyo muuqaalkoodii baa isbedelay haddii timo iyo cidiya ku baxeen oo muuqaalkoodii isbedelay ma waxay odhan lahayeen maalin mise maalin gelinkeeda inaan joogni miyaa la odhan lahayn ma dheheen way garan lahayeen meesha inay ku ceraysteen way fahmi lahaayeen wax oogadooda kasoo baxbaxay isbedel ku dhacaya hadduu imaan lahaa maya sideedii baa ilahay ugu talagalay suuratulbaqaraan kusoo maray dameerkii iyo ninkii hilibkiisii iyo markaan soo marayneen lam yatasanah xataa raashinkii baan isbedelin waagii 100 sano 100 sana hataa soo maray taasoo kale ilahay hadduu doono subxaana wataala awooddiisa waxaynu maaragtay ina awoodana binaada ka baxsan wey qaala wuxuu yihi qaa'il mid oranayaa oo minhum iyaga kamid kam labithum imisaan meeshaan ku nagaateen kahfigaan ku jiray qaaluu waxay yidhahdeen labithnaa waan ku nagaanay yawman maalin aw amase bacda yawmin maalin barkeed qaaluu haddana markaasi waxay yidhahdeen dad muslimiin oo wanaagsan bay ahaayeene rabbukum rabbigiin ayaa aclamu ogaal badan bimaa labithum intaad bimaa muddadii labithum aad ku nagaateen halkaa iska daaya bay yidhahdeen ilahay baan u daynay bay yidhahdeen waa ka haray shayga haddii la garan waayo allahu aclam in la yidhaahdo waa dawadaa ku jirta wey mar haddaa allahu aclam tirada ilahay wax walba waa cilmiga u celisid waxba ma aadan bi'in fabcasuu soo dira bay yidhahdeen axadakum qofkiin biwariqikum dheh fabcasuu bixiya axadakum qofkiin soo bixiya bay la dira biwariqikum lacagtiina lacagta fidada waa warq la yidhahdaa marka lacagtiini haadihi midda tana la dira axadin ka mid ah ila almadinati magaalada ula dira wey madiinada tani waxa weeye beledka ay ka baxeen oo ka carareen oo ninkii boqorka ahaa iyo dadkiisa uga carareen iyo qoonkoodii asnaabta caabudayay babcas waxay u haystaan inay shalay ama maanta galeen godka lacagtii ay la soo galeen meesha nimanku lacag bay la soo galeen haddii aayaddaa tilmaamaysa lacag bay sitay lacagta naf bay ka dhiganayaan inay marmar magaalada u dhuntaan wax soo gataan qorshaa ku jirtay qorshaha inay lacagtooda godka kula noolaadaan bay rabeen babcasuu dira bay axadakum qofkiin biwariqikum lacagtiina haadihi midaana ila almadinati beledka ula diray yidhahdeen afsuus iyo waxaasi tafaasiirtu qoraan magaalada magaceeda falyandur ha fiirsho qofkaasi ayuhaa magaalada keebaa askaa dahirnaan badan dacaaman xagga cunto ahaan niman mu'miniinay ahaayeen meeshiina gaalo asnaam caabudaysaa ku noolo qaar xoolo baktiyaa laga helaya loo gawracayo ilahay qeyrkiisa wax badan baa iska jira saas daraaddeed waxayna cuntada midda ugu xalaalsan saasay u dirayaan
falyandur ha fiiriyo qofka in aad adeega u dirsataan ayuhaa beledka kii ka ah askaa daahirnaan badan dacaaman xagga cuntada falyatikum ha idinkala yimaado birisqi risqi ha idinkala yimaado minhu dacaamka xalaasha ah dayibka ah dacaamkaas askaaga ah oo fiican ha idinkala yimaado risq ha idinkala yimaado ha idinka soo gado waliyataladaf hana isfududeeyo ha xeeladaysto taladufku waxa weeye qofka baqaaya oo isla beledkan haddaa gashi waa lagu dhibaataynaya sida uu yeelo yacni qofku ha basristo markuu sii socdo jidka iyo yaan la dareemin qof cusub meesha inuu yahay ama wax kale meesha uu ka gelaayo markuu beledka gelayo markuu dhex socdo markuu wax gadanayo si aan la dareemin haw socdo wey waliyataladaf ha isfududeeyo oo maxaan ku idhahdaa ha farsamaysto wey sida uu wuxuu gadanaya sida magaalada uu dhex marayo yuu ismuujin walaa yushciranna yuusan idin dareensiin bikum idinka axadna qofna yuu idin dareensiin magaalo guuxaysahoo niman baa naga fakaday oo cararay oo meeli jiraan lama yaqaano diin kale la cararay oo magaalo saasay ogaayeen oo la raadinayo baa isleeyihin haddii marka ninkaan la qabto waa la jir dilaya waa laidin keenaya halkaanay ku jiraan ba oranaya cabsidaasaa la qabaa walaa yushciranna yuusan idin ogeysiinin bikum idin dareensiinin bikum idinka yuu idin dareensiin axaddan qofna yuu idin dareensiino dadka idinkusoo hogaami inta isaga la fahmo inuu nimankii ka mid yahay inahum iyagu nimankaa beledka jooga boqorkuna ka mid yahay in yadharu hadday daalacdaan in yadharu hadday ogaadaan oo daalacdaan calaykum dushiina hadday idin ogaadaan yarjumuukum dhagax bay idinku dilaayaan waa idin rajminayaan dhagax baa la idinku dilayaan waxaa laga garanaya qoladaasi qofkii diintooda ka horyimaad ay dhagax ku dili jireen waa sifo kale wey oo amase yuciiduukum waxay idin celinayaan fii millatin diintoodii waa gaaloobaysan diintooda idin celinayaan oo waxay odhan asnaamta nala caabudo qasab bay idinkaga dhigayaan walan tuflixuu mana aflaxaysaan oo ma liibaanaysaan idan haddaad diintooda ku noqotaan abada weligin ma liibaanaysaan adduun iyo aakhiratoona liibaanimaysaan ya aafo saasay marka ku tashadeen in baa la diri doonaa wey ilahi wuxuu subxaanahu watacaala qur-aanku iimaani baa laynu ka sheekaynayaa sheekada wax oo dhan la wada sheego sida waxu dhaceen oo dhan muhiim maaha muhiimka waxa weeye faa'iidada sida ku jirta keliya wey oo ilahay danta uu ka leeyahay subxaana watacaala saas weeye ninkii mufasiriintu waxay leeyihiin ninki waa tegey si kasta ha u xeeladaystee hantida markaa dhiibti sow lacag dhiibi maysi ilaahay baa yaqaan laakiin lacagti baa sabab u noqotay ninkii in la ogaado oo arrintii ka shafanto ilaa dadkaana muddo waagaa in taarikhdaas u dhacday oo dad noocaasa la waayey oo waxaas taarikhda waa la hayaa laakiin 309 sana kasoo wareegtay lacagta waa laga yaaba boqorro hore in namarahooda ku yaaliin waxa ay tahay lama yaqaan mar allaale lacagtii markii la arkay baa la yidhi waa qayl afka wala taliya war wax kan waa maxay ninkaan hay war maxaa ahay lacagta tani maxay ahay waabaka waa arrintii waa ilaahay baana ugu talagalay inay arrintoodu qaraxdo meesha markaa dadkaa la joogay diintii nabi ciise baa waxaa la isku hayay bacthi waa jira iyo ma jiro marka qolada nimankaa soo baxayaan ahlu kaafiga laakiin dadka muslimiinta oo xaqa raacsan baa marka awood badnaa bay leeyihin mufasiriintu labay u kala jabnaayeen dad bactiga diidan iyo bacd bactiga ogol baa la isku hayay khilaaf baa jiray ilaahay baa marka tusay wey wakadalika sidaas oo kale sidaa aan usoo toosinay wey kadalika sidii hore kale awal saan u seexinay baan usoo toosinay markii dambe haddana wakadalika sidaa aan usoo kicinay oo jiifkii dheera uga kicinay baan actarnaa tusinay weeye annaasa dadkii calayhim korkooda kadalika sidaa actarnaa sidaa aan usoo kicinay wakadalika ay kamaa ayqadnaa sidaan usoo baraarujinay baan actarnaa tusinay catriga waxaa la yidhaha qof baari uu doonay ka duldhacay nimankaasi niman waag hor inta la raadi jiray la waayey oo hadda la helo laga duldhacay actarnaa ayaanu tusinay weye oo ka durrinay calayhim korkooda annaasa dadkii baanu tusinay weye actarna annaasa dadkii baan tusinay calayhim iyaga lacagtaas darteeda lagu ogaaday bale sababta maxaan u tusinay liyaclamuu dadkii inay ogaadaan dhulka deganaa anna wacdallaahi ilaahay yaboohayso oo in dadka lasoo saarayaa xaqun xaq inuu yahay bactigu inuu xaq yahay 309 sano nimankii halkaa jiifay allaha soo kiciyey oo maanta ay dhulka marayaan waxa weeye inay tahay maxaan ku rahdaa ilaahay inuu dadka qiyaamada soo saari karo wax loo daliishanayo wey marka liyaclamu inay ogaadaan aad bay isugu hayeen baa lay bactiga liyaclamu inay ogaadaan dadka dhulka degan markaa anna wacdallahi ilaahay yaboohayso oo dadka in lasoo saaro bactiga xaqun inuu yahay waa anna saacadda qiyaamana laa rayba shaki fiiha inuusan ku sugnayn id waqti bay arrintaasi ahayd yatanaasacuuna ay ku murmaayeen baynahum dhexdooda amrahum amarkooda ay ku murmaayeen yatanaasacuuna amrahum baynahum waxaa tanaasucaya waa qoladii ishaysatay oo beledka deganay oo isu haysay bacthi baa jiray bacsi ma jiray id waqti yatanaasacuuna ay murmaayeen amrahum amarkooda ku murmaayeen baynahum dhexdooda ahaday dadkii beledka deganaa amarkooda ku murmaayeen oo qaarna ay leeyihin bacthi baa jira qaarna bacthi ma jiro tafsiir kale id waqti yatanaasacuuna ay ku murmaayeen baynahum dhexdooda amarkooda ay ku murmayeen
oo isla aayadda kelmadda soo socota ay la socoto laleeyahay amarkay ku murmaayeen waxa weye sidee laga yeelaa nimanka waa kale ilaah baa yaqaan laakiin waxa la yidhahda ninkii markii dambe wuxuu galay godkii markuu tusaayay buu godkii galay kadibna intiiba way dhinteenoo wax saasaa la yidhahdaa markaasay isku qabteen qaar waxay yidhahdeen waxaan ku wareejinaynaa qolana waxay tiri waxaan ku wareejinaynaa xaydaan baan ku wareejinaynaa qolana waxay tiri ma masaajid baan ka dhiganay qoladii masaajidka u adkaatay waayo faqaaluu waxay marka taas wey id yatanaazacuuna id waqti yatanaazacuuna ay ku murmaayeen baynahum dhexdooda amrahum amarkooda ay ku murmayeen tafsiir saddexaad id waqti yatanaazacuuna ay ku murmaayeen baynahum dhexdooda ay ka murmaayeen amra waxaa tirada id waqti yatanaazacuuna ay ka murmaayeen baynahum dadkii beledka degan dhexdooda ay ka murmayeen amrahum amra asxaabi ilkahfi taana waa la yidhahdaa midda kale id yatanaazacuuna amrahum baynahum waxaaba lagu fasiraaba asxaabulkahfiga laftoodaba laakiin sida ugu fiican waxa la yihi in la yidhahdo dadkaa murmaaya waa dadkii beledka wey waxay isku hayaanna ama waa dhexdooda ka murmaaya waa bacthigii inay qaarna diideen qaarna ogolaayeen ama waa si nimankaan laga yeeli lahaa nimanka hadda maanta godkaan ku jira oo meesha ku dhintay faqaaluu waxay yidhaahdeen qoladii beledka deganay qayb ka mid ihi ubna u dhisa calayhim korkooda bunyaana dhisma ka dul dhisa dhisma lagu wareejiyo kahfiga lagu wareejiyo halkaa uga dhisa wey rabbuhum rabbigood baa calam ogaal badan bihim iyaga nimankaa dhalinyarada waqtiga ahaa haddana meeshaan nolosha lagu arkay ilaahay baa xariintooda ka warqabee nimankaa waxa weeye dhisma ku wareejiyo rabbuhum rabbigood baa calam ogaal badan bihim iyaga qaala aladiina ku waxay yidhahdeen waa qola kale qaala aladiina ku waxay yidhahdeen qalabu waana dadkii toosnaa baa liyi markaa diintaa ku toosnaa nabi ciise qaala aladiina ku waxay yidhahdeen qalabu waa qaalib noqday calaa amrihim amarkooda ka qaalib noqday oo taladooda maamulideeda ka qaalib noqday lanatakidanna waxaan ka yeelanaynaa calayhim korkooda masjida masaajid baan ka yeelanaynaa waagaas waxaa la yidhaha sharcu man qablana diimaha naga horreeyey dadkii hore ay haysan jireen wixii diinteenu ogolaatay waa la qaadanaya wixii diinteenu diidana waa laga tegaya wixii diinteenu ka aamusay baa war la geliyey oo tafsiilaad badan u baahan xagga usul fiqiga lagu bartaa laakiin middaan waxa sharcu man qablana adiladu ka mid ah sharcu man qablana dadkii hore shuruucdoodii marka masaajidka waaga haddii masaajidii in laysu keeno dad meel ku dhintay quburahood in laysu keeno waaga hadday jirtay diinteena islaamku waa xaribtay bal dambi kabaa'ir bay noqonaysaa masaajidka haddii meel ku yaal qabri la keeno oo mayd lagu duugo khalaas waa laga bixinayaa meeshii maydkaan la bixinaya waxaa laleeyahy masaajidka meesha u xaqlay isagaa usoo horreeyey haddii maydku meesha ku jiro masaajid laga dulsana war waxaan masaajid maahay mayd baa laga dulsayay masaajidkaa la duminaya maxaa yeele maydka muslimkuna xaq buu leeyahay masaajidkuna xaq buu leeyahay hadba kii soo horreeyaa boqcadda mulkiyaya kii dambeeyaa xaq ma leh alxaqu liman sabaqa saasay fuqahadu qaateen marka saas weeye marka innaga diinteenu ma ogola masjidkii qabriga in la isu geeyo laakiin qolada tani weliba qalabaad arkaysaa qolo xoog inay ku dhiseen meesheen xoog inuu jiro qalabada lafteeda dhibkeeday wadataa lanatakhidana waan ka samaysanin calayhim qaala aladiina qalabuu calaa amrihim kuwii taladooda u xoog batay waxay yidhaahdeen taladooda ama ha ahaato talada nimankan wixii laga yeeli lahaa ama iyaga taladooda qofka waxa la yidhahdaa markuu isaga wax qaban karo waxa taladiisu u qaalib noqday yani isagaa wax qaban kara wey lanatakhidana waan samaysanayna calayhim korkooda masjida waxaa kaloo marka lagu dooday maxaa imisay ahaayeen cadadku muhiim badan ma leh intay ahaayeen ama ha badnaa ama ha yaraadeen laakiin dadkii baa dood gashay nebigana arrintan waa lagu adkeeyey tiradoodii iyo asxaabkaafi waxay ahaayeen iyo taariikhdoodii yahuudda intay dadkii carabtaa usoo dhiibtay saddexdii su-aalood hadda kahor inaan baan tilmaanay saddex su-aalood oo ruuxda nafta bini aadamka la geliyo iyo kahfi asxaabulkahfigan iyo dulqarnayn saddex su-aalood oo xujaa bay ahaayeen ay carabta u dhiibeen dadka yahuudda ahaa marka tiradooda markayda lafta laga murmaayo sayaquluuna waxay odhan doonaan dadka ku doodaya ku murmaaya weliba ahlu kitaabkii dadka ku murmaaya tirada asxaabulkahfi intay ahaayeen hum iyagu sayaquluuna waxay odhan doonaan hum iyagu ilaahay baa dhahaya alla wuxuu yidhi sayaquluuna waxay odhan doonaan hum iyagu asxaabulkahfigu halaatatun saddex weeye raabicum kooda afraadna kalbum eygoodii wey eyga afar ku ahaa wayaquuluuna waxay odhanayaan haddana khamsatun hum iyagu khamsatun shan wey qolo kale wey qolo saasay dhahaysa qowlkaasay qabtaa inay saddex ahaayeen eyguna afar ku ahaa qolo kalena waa ka wayaquuluuna kuwo kalena waxay odhan doonaan hum iyagu asxaabulkahfu khamsatun shan bay ahaayeen saalisum kooda lixaadna kalbum eygoodii buu ahaa intaasoo dhanba maxay tahay rajman waa ganid bilqaybi qaybka la garayo qof meel usan ka warqabin war ka sheegaya rajman bilgayb kelmadda waxay isticmaalaan rajmi waxa dhagaxa la tuuro meel lagu garaaco qof meel wax ku jira wax kale aan aqoon intuu dhagax qaato isaga tuurayo oo halkaas waxaas ku jiraan waa rajman bilgayb marka waxaa leeyahay qofkaasi wuxuu sheegay wuxuusan ka warqabin buu sheegay rajman bilgayb ama waxa dadka oo daraska yidhahdaan meel la yidhahdo waxaas wuxuusan hubin iska sheego mala awaalkaas wey rajman bilgayb qaybka iyadoo la ganaayo been la sheegayo waxaan la hubin aan la sheegayo waa lay subxaana wa tacaala intaa waxay kutusaysaa intuba inay waxba ka jirin
ويقولون وحي أرانا ينبو إلهي يري 7 تضبوية وثامنهم كودا سيديدادنا كلبهم أي وديوي أيضا ماشي وحي كجب بدلته وو بالغودري وثامنهم حليري با وو قاش هذا ذكر لهم في تفاصيل توسيسوها يستحق اللغة العربية أي وو قا كلي أنت كهضلايا والله يا عيسى وو قا نحكي لي أنت كلا حوالي 3 4 لو دري وو ما تشري كو هرا marka tirada maxaa wowga loo dhaxgashay ويقولون waxay oranayaan hum iyagu 7 toddoba asxaabul kahfi wa thaminuhum kooda sideedaadna kalbum eygooda way macna weyn kalama soo kordhini wowgaan ilaa waxay leeyihiin dadka carabta dhaqan waxay lahaayeen markay tira isku daba taxaan bila cadaf ah markay toddoba marinayaan bay wow keenaan bali asal bila cadaf ya markay raqamka toddobaad marayaan dhaqan bay iska lahaayeen bali toddoba inay yiraahdaan hadda marka aayadda quraanka ay soo qaadanay fiirisid nabiga marka la leeyahay in dalaqakum ay yubadilu azwaajan muslimatin mu'minatin qaanitatin taa'ibatin xaafidaat ilaa markii la gaaro waa abkaar toddoba markii la marinayo abkaar sideed bay ka bilaabanaysaa toddoba eray markii la sheegay gabdhaha nabiga markii la ilaahay kuwaas kugu bedelaya muslimatin mu'minatin qaanitatin taa'ibatin caabidatin saa'ihatin tayyibatin wa abkaar toddoba markii la sheegay tiisda laga dhigay luqadda waxa luqadda markii lagu yaqaano way sharaxa marka waa iska waxa برنامج لقديد وين إلهي سبحانه وتعالى ويقولون وحي أرانا يعني 7 تضوي هم يجوا 7 تضوي وثامنهم كودا سيدنا كلبهم أي جودوي والله حاتر هذا نبي الله ربي جايب أعلم أقال بدن بعدة امتراض إلهي بأقال بدن ما يعلمهم ما أقال تراض أصحاب الكهف ما يعلم ما هم أصحاب الكهف تراض إلا قليل وحي المويان إن يربأوا يتكلم أقول سأسأل الله سبحانه وتعالى عبد الله بن عباس وأوحي رجل أنا وتراض ذاتك يرى أقبع كم بدحي ما النبي قال الشيء بس آيات كفهم sababta ku tahay rajma bil qayb aayada labada hore markii la saddex bayaan eeyga 4 ku ahaa 5 bayaan eeyga 6 ku ahaa marka dambe waliga 7 ahaa eeygu 8 buu ku ahaa rajma bil qayb laga madaba keenin kaana ilaahay taas inuusan hadaan rajma bil qayb laakiin waxa laga fahmaya tirada saxda inay 7 ahaayeen faham ay ka qaateen taas marka ibn Abbas ama aayada ka fahmo aqligiisa ama nabiga ha ka maqlay wuxuu leeyahay anigu dadka yar oo yaqaan baa kamid ahay ilaahayna wuxuu sheegay aayada in dad yar oo yaqaan jiraan garanay inta tirada ahay marka dadka inta taqaan baa yaray inta badan been bisheys wal waxa rabbi ba calam ogaal badan bicida timtiradooda ma yaclamu tiradooda ma oga illa qalil wax yar mooyaan nabiga waxa leeyahay falaatu maariha ku doodin fiihim asxaabul kahfiga illa miraan dood mooyaan mujaadala doodaas oo daahiran muuqata mar haddaad aragtid dad ku murmay asxaabul kahfiga ama tiradooda ama arrimahooda wax cad ma hay wax kale ma oo dooda daahirka maxay tahay iyada lafteeda waa isku qabtay maxaa laga wada daahiratan laba qowl kaliya ka soo qaadanayna midi waxa weeye الله أعلم بعدتهم إلى تلهاد إلهي باترود يقال وكبحدي فاسوا ظاهر هذا العدوي لا إلهي ما يقول ربي أعلم بعدتهم فحاتر هذا إلهي باترود يقال نه نبي قال الله لقينا يسومها يقف كسو مسلم ولا الله لقينا تاسع ظاهر هذا الظاهر كان وحنا كان راعي عند مكان راعي هنا ترى إلهي ما يقال وركاوي ورلا عندنا يعني وحي الدليل وحي أهل أصحاب الكهف الشيء كذا هدي لولا شيء أنا ترى لولا شيء وحي الدليل لو قرآن دين شيء تاسع ظاهر عيال وحي القرآن كان الشيء حق عدوي أنا هذا الكتير وحي القرآن كان شيء كجاب صوي فلا تماريها للدودين فلا تماريها كدودين فيهم نمك أصحاب الكهف في شأن أصحاب الكهف كدودين إلا مراء دود موينا ظاهرا مقطع أو عدل أما الدليل أما سيدا الله أعلم إلهي له ولا تستفتح في دي ويدين وهالسؤال ويدين فيهم أصحاب الكهف شأن يقول منهم أهل الكتاب أحد قفك من أحداك ويدين أهل الكتاب هو ضد رمي ودينه ذكر عياري قفه وحروا إسك الشيء markay warkooda ka qaadan hadii kala minhum dadka oo dhan baa loo cishay ahlu kitaabka kaliya ma qof kasto oo ahlu asxaabul kahfi ku doodaya ama ahlu kitaab ha noqdo ama qeyrkood ha noqdo ama carabti markaa warka loo soo dhibo ha noqdo ama cid doonto ha noqoto qof kasta oo ku doodaya waxa ka weydiin bali wala tastafi ha weydiin fiihim asxaabul kahfi arintooda minhum dadka oo dhan ba ama dadka ahlu kitaabka dadka warkan keenay axad qof iyaga kamid xala ka weydiin maxaa yeelay waxba ka ogeyn bay wadwadaan هذا وحي رسمي على وجه أنت رسمي أنت على وجه بس وحي اللي قاري ولا قام السنة حلو الله قام بحنا سأسأل الله سبحانه وتعالى إلهي وحي سبحانه وتعالى وترى وذلك يساء الشمس والرحذي إذا طلعت مركي صوب حضو تزاوروا إني كلا حنيسو وكقورانيسو عن كهفي بجود كودي ذات اليمين إنك ميدك تأينك كقورانيسو ميدك بك ما يساوي وإذا قربت الضيط عضنا تغريدهم وحي كتجيسا تترك waxay ka tagaysaa ama taqdac waxay ka goynaysaa ama ka tagaysaa daatal shimaali dhinaca bidixda ah haduu godku u jeedo yaani maxaa ka dhacay waqooyiga oo kale dhinacaas markay qorraxda ka sii dhacayso dhinacii kale godka
afkiisa dhinacii kala awdaaya iyagu kaga aadan wey wahum iyagu alxaal bisida qoraxda marba dhan ka maraysaa wahum iyaguna fii fajwatin waxay ku jiraan meel waasaca oo minhum min alkahfi godka ka mid ayay ku sugan yihiin dadka asxaabu kahfiga ah dhalinyaradaasi dalika arrinka aan samaynay oo dadka muddada dheer meeshaa ku noolaa min aayaati illahi ilahay aayaadkiisu ka mid yahay waxyaabaha ilahay waxdaanaysa loo daliishado aayaadka ilahay bay ka mid yihiin man qofkii yahdi llahu ilahay hanuuniyo fahuwa isaga almuhtadi mid hanuunsana sida nimanka asxaabu kahfiga waman qofkii yudil ilahay u dhimiyo falan tajida lahu isaga u heli maysid weliyan axad weliya oo arrintiisa maamula murshidan oo toosiya waddada saxaa tusa u heli maysid qofkaan ilahay la damcin daa daraaddeed waxaa ka mid a boqorka iyo nimankii dadkaan leynaya xaqa ku socda oo iyagu asnaamta caabudaya wataxsabuhum waad u malaynaysa asxaabulkahfigii ayqaadan inay hurdaan waxaa ka wada ayqaadan inay soo jeedaan baan u socdaa wataxsabuhum waxaad u malaynaysaa ayqaadan inay baraarugsan yihiin oo soo jeedaan say indhaha u kala hayaani walxaal hum iyaguna ruquudan hurdaan waa hurdaan wanuqallibuhum waa gadgadaynaa buu ilahay yidhi asxaabulkahfiga daata lyamiini dhanka midigta wa daata shimar dhanka bidixda hadba dhan baan u rogeynay saan ciiddu u cunin wa kalbuhum aygooduna baasidu kii fidinayo hadiraacihi labadiisa dhowdhow jeenyaha hore bilwasiidi albaabka fagaagiisa ayuu jeenyaha fidinaayay law idalacta haddaad daacatid oo fiirisid haddaad fiirin lahayd law idalacta haddaad fiirin lahayd calayhim korkooda la wallayta waad jeensan lahayd minhum asxaabulkahfiga firaaran carar baad la jeensan lahayd cagaha wax ka dagi lahayd wala mulita waa lagu buuxin lahaa minhum iyaga rucban argagax iyo wadda xanuun wadnaha ku fadhiisan lahaa cabsid aa ka cabsidi ka qaadi saskaa ka qaadi wakadalika sida aan hurdada u gelinay waa allahi subxaana watacaala ay saan u seexinay maca sidaasoo aan u seexinay oo kale baan bacatnaahum usoo bixinay wey markii la seexinay ilahay baa ugu talagalay marka la soo bixinay in wax lagu qaato aayada wax lagu qaato wey bacatnaahum wakadalika sida aan u seexinay baan bacatnaahum haddana soo bixinay baa allahi subxana watacala soo saaray liyatasaaluuna isweydiinayaan asxaabulkahfigii baynahum dhexdooda in wax iska weydiiyanay yaraa imisayna meeshaan joognay qaala wuxuu yidhi qaa'ilun mid hadlay oo minhum asxaabulkahfiga ka mid ihi kam imisaad labistum ku nagaateen meeshaan su-aashaasuu soo jeediyey qaaluu waxay yidhi labitnaa waxaan ku nagaanay yowman maalin shalay baynu meesha galay aw bacda yowmin ama maalin qaarkeed qaaluu waxay yidhaahdeen markii dambe hadalka ku goonaanadeen rabbukum rabbigiina aclama ogaal badan bimaa labistum intaa meeshaan ku nagaydeen ilayhin baa ogaal badan fabcathuu dira bixiya axadakum qofkiinba wariqikum lacagtiina haadihi midaana la dira axadkiin la dira ila lmadiinati beledka u dira falyandur ha fiiri ayuhaa beledka kiisii askaa dahirnaan badan dacaaman xagga cuntada falyaatikum ha idinkala yimaado birisqin waxaad risq ka dhigataan oo minhum dacaamka xalaasha ka mid a walyataladaf hana xeeradaysto oo walyataladaf ha isfududeeyo oo ha farsamaysto farsamo uu ku fakado farsamo uusan cidna idin dareensiin oo qofka maarata hadduu isqarinayo yani inaan la dareemin meelaha dadka ku badan yahay iyo meel la dareemi karo dhan bu ka leexanayaa saas samaynaya walyataladaf walaa yushciranna yuusan idin dareensiin bikum idinka axaddan qofna ayuu idin dareensiin waa laydinku soo kacaya nimankiibaa nin laga qabtaa laleeyahay isagaa meeshii dadkii geynaya inahum iyagu nimankaa boqorka iyo dadkaa la joogaa in yadharow hadday daalacdaan calaykum dushiina oo idin helaan yarjumuukum waydin dhagax bay idinku dilaayaan wey aw base yuciiduukum waxay idin celinayaan fii millati diintooda bay idin celinayaan gaalnimadii asnaamta lacaabudii ahayd walan tuflixuu mana liibaanaysaan idan haddaad diintooda u noqotaan abadan weligin liibaani maysaan wakadalika sidaa aan u seexin hurdada uga soo kicinay ayaan actarnaa u tusinay oo ka dulrinay annaasa dadkii calayhim korkooda dadkii baa arkay arrintii dhan baa ka fashifantoo la ogaaday wey maxaan dadkaan u tusinay liyaclamuu inay ogaadaan ana wacd allahi ilahay iyaba ohaysiiya bachiga xaqun xaq inuu yahay oo bachi dadka lasoo saarayo inuu xaq yahay aya inaan tusino wey qofka asxaabulkahfiga fahma wuxuu fahmayaa calaamad ku tusinaysa bachiga inuu yahay waana saacata saacaduna laa rayba shaki fiiha saacadda kuma sugna wey saacadda qiyama inay dhacayso id wakti baa arrintaan maarata baanu tusinay wey yatanaazacuuna ay ku murmayeen baynahum dhexooda amran amarkooda oo bachiga inuu jiro yuusan jirin qolana bachiga ogolay qolana ay diideen la isku haystay muslimiinta marka qolada toosan baa meesha u xoog badnayd baa lay faqaaluu waxay yidhaahdeen qolo ka mid ihi ubnu u dhisa calayhim qolada asxaabulkahfiga ah bunyaanan dhismo u dhisa dhismo ku wareejiyay dheheen rabbuhum rabbigood baa calam ogaal badan bihim iyaga qola saasay tiri wey qaala aladiina qoladii markii dambe u taakronaatay waxay yidhahen qaala aladiina waxay yidhahdeen qalabu u awood batay calaa amrim arrintooda lanatakhidana waa samaysanaynaa calayhim asxaabulkahfiga masjidan baan ka samaysanaynaa masjid baan kaa dhigsanaynaa wey sayaquuluuna marka hadalkan waxaa tiradii baa la isku hayaa masaajidkana waa sheegnay masaajid iyo qabri ummadda diinteena islaamka ma ogola sharci man qablanaa weeye sharci marka tan sharciyadii naga horreeya la diiday ba ka mid tahay wey wayaquuluuna waxay odhanayaan dadka ahlu kitaabka ama ha noqdeen ama cid kasta ku doodaysa qolo ka mid waxay odhanayaan hum asxaabulkahfigu halaaatu saddex bay ahaayeen raabicum kood afraadna kalbum aygoodu ahaa wayaquuluuna waxay odhanayaan khamsatun hum asxaabulkahfigu qolo kale weeye qolada tan wayaquuluuna qolo kale waxay dhahayaan hum asxaabulkahfigu khamsatun shan weeye saadisum kooda lixaadna kalbum oygoodii wey
rajman arrintaasoo dhan waxa weeye rajman maaratay ganid weeye daraaddeed bilqaybi qaybka ay ganayaan qaybkay ganayaan waxay rumin bay iska tuurayaan wayaquuluuna waxay odhanayaan qaar kuwa kale sabcatun hum iyagu sabcatun toddoba weeye wathaaminhum kooda sideedaadna kalbuhum aygoodii wey aygaa sideed ku ah wey qul waxaa tidhahdaa rabbigayba aclam ogaal badan biciddatihim tiradooda nabi allow saa ku dheh tiradooda ilahay baa u ogaal badan maa yaclamuhum asxaabulkahfiga ma oga tiradooda ilaa qaliilan wax yar mooyaane falaa ilahay wuxuu nabi allow falaa tumaari ha kula doodin ama qofka lala hadlayo falaa tumaari hala doodin fiihim fii shanihim falaa tumaari ha doodin oo ha murmin mujaadalaha gelin fiihim fii shanihim asxaabulkahfiga shanigoodii arrintooda ilaa miraa'an dood mooyaane daahiran muuqata oo ina allahu aclam uga baxdin ama aad daliil cad keentid wuxuu qur-aanku sheegay wixii kamid a qofka diida waa kula doodaysaa hadduu qofku yidhahdo asxaabulkahfi odayaal bay ahayn ma ka yeelaysaa dhalinyar ahay qur-aanki baa dhahay soo ma wixii lamid a wuxuu qur-aanku sheegay ha daliil haysta walaa tastafti hana fidyo weydiin fiihim asxaabulkahfiga arrintooda minhum dadka ahlulkitaabka ama cid kastoo su-aal kaa weydiisa ama dadka dunida ku nool oo dhan ba axadda qofna ha ka weydiin su-aal waxba ha ka weydiin wey waxba kama oga anaa xaqiiqadeeda haya intaa kuu sheega wey ha su-aal ilahi subxana wa tacaala ilahi wuxuu subxaanahu wa tacaala walaa taqulana lishayin ini faacilu dalika midaana waxay ahayd markay nabiga su-aalaha ayaanta ay weydiiyeen habeenkii nabigu kelmad baa ka dhacday wuxuu yidhi si nebi sulaymaan oo kale markuu yidhi caawa 100 dumarkayga kamid aan u tagaya 100 wiil bay dhalayaan dabeedna uusan insha allah ku darin oo kale xadiiskii hadhowna 99 dumarka ay waxba dhali waayeen hal mid baa uur qaaday midiina ilma jeexisay dhashay yani nabiga insha allah kuma u darin sulaymaan qisadaas oo kale weey nabiga sallallahu alayhi wasallam habeenkii kelmadii insha allah baa la hilmaasiyay markaas wuxuu yidhi berri baan idinka jawaabi doonaa nabigu wuxuu filanayay malku jiru u yimaado arrinta u sheego maadaama waxyaaba xujo ay tahay wixii xujaa nabiga waa loo sheegi jiray kelmadii insha allah ka tagtay baa la ganaaxay nabigi waxa 15 maalmood baan wax ugu imaan markaasay aad waa taqaan dadka hadda diinta diidan leeyahay ninkii wixii wala ninkii waxba uma soo socdaa warkii beeni maxamed waligi runbu sheegay maanta maxaa ku dhacay maanta waxba looma keeno miyaa si loogu buuqaya marka aayadani timi waxa la leeyahay markaad hadal la haysid waxa way insha allah wax ka reebi waa midda labaad insaan baatay haddii ilowsha kugu dhaco mar allaale markaad xusuusatid inaad insha allah hadalka ayaanta aadan ku darin ama had meesha la joogo ha ahaato ama maalin baa kasoo wareegto ama 20 sano ha kasoo wareegto mar allaale markaa xusatay warka ayaanta aad dhahdeen insha allah inaad ku darin markaa ku dar walaa taquulanna ha dhihin nabi allow lishayin shay ha ku dhihin inni anigu faacilun waa samaynayaa daalika shaygaas qadan berri baan samayn doonaa qadantu waxay ka wacdaa wax allaale waqtiga kugu soo socda mustaqbalka oo dhan qadan buu noqonaya hadda ka bacdi ma waxaa samayn doonaa ha dhihin ilaa an yashaa allahu ilahay inuu doono mooyaane يعني إلا أن تقول إن شاء الله إن ترهد مويان هذا إلا إن شاء الله إلهي ندور ما هي هذا وراك سائر وقصة لكن هذا معني سوى حوي إن شاء الله ترهد مويان إن شاء الله إن ترهد مويان واذكر حس ربك إذا نسيت هدا إلى ودين ربك حس هذا قول هدا إلى ودين هدا إن شاء الله إلى ودين هل كان الضاد بدن قليل شرح بدن كتيرايو شرح عن وحوي إليهن أنت قارباير فرق أنت فرق بس شيء كرتا قارباير مالين يلا بها قارباير وحاصلك كاري مرة الله لما كان حسيت إن شاء الله وده لكن أحكام كلا كذا الله يسوها هدات شيء نقدر كوجا شيء أو شيء فوري واي وقتي هدات البريمة ما واحد سمعني نقدر كوجا هدو شيء واحد بريو كلا سمين ويدي وكوسو رجالي واحد نقدر كوا لا يعرف يسوي لكن إن شاء الله مرة بس كده وقت كساك سوري نقدر كاي باتشين ماي إن شاء الله كاب باتشين ما يسمع هاي إن شاء الله واحد نقدر كي وحياه كلا باتش ساي مركب حرير صنطة هاي متصل هذا نيك حاسس إذا ضربتك 3 إلا واحد هدو يراها ها لكن مركو يرى صدح معكم أوفر صدح ساعة كبعد هدو يرى ما يمد على صور لا جاي يري باي استثناء سيدي سوى دروس لو فقه لو بر فقه قطع القوي مركا الله سبحانه وتعالى وحليه ولا تقولن هديه لشيء إني أنا فاعل وسمينيا ذلك أرك شيء قدم بري إلا إن شاء الله إلهي مدونا ميان إلى ترهدي إلهي مدونا إن شاء الله إلى ترهدي ميان واذكر حس ربك إذا نسيت هذا اللي ودين إن شاء الله ودي وقل وحاتر هذا عسى وحمديه أي هدينا إنه يهانوني ربي لأغرب وحكدوا من هذا أصحاب الكهف قصة رشدة وصنان أصحاب الكهف قال تفسير لبعض باتشروا هذا اللوع عليه إن شاء الله ضلفتين قف إلاوي كان اللوع عليه نواتشر لكن تفسير اللوع بدأ يكوي وقل وحاتر عسى وحمديه وحققوا أي هدينا ربي إنه يهانوني لأغرب وحكدوا واشبضا من هذا قصة أصحاب الكهف رشدة وصنان أو أصحاب الكهف dhalinyaro meel gashay oo mucjisadaad ka samaysatay ahaayeen imisa nabi imisa rasuul Allah soo diray quraankan ka qisoonaya imisa quraankan mawduuc ka hadlaya imisa shay wax lagu qaadan karo quraankan sheegaya yaani ka sii badan marka saa darteed asxaabul kahfigaas hadalka la galinayo
inuu ilaahay subxaana wa tacaala yani meel ka dhow yani waxyaabo kale ugu hanuuniyo ayuu ilahay mudan yahay subxaana wa tacaala walabithuu way ku nagaadeen fii kahfihim godkoodii bay ku nagaadeen halkan waxaa la caddaynayaa inta sane ay meesha ku jireen walabithuu way nagaadeen asxaabulkahfigii fii kahfihim godkoodii meesha aad degan tahay muddo joogtay waa lagugu magac daraya godka waxaa laga dhigay iyagu inay leeyihin waa loo idaafeeyey fii kahfihim godkoodii yani godkoodii 300 300 siniina oo ku yaala sanadaa wey ayay ku jireen wey qira kalaa jirta 300 siniina oo la isu idaafeeyo labadaba isla meeshii wasdaadu wayna kororsadeen 9 bay la dheeraadeen culimada qaar waxay yidhahdaan haddii bilaha maalmaha la tiriyo shamsiga bilaha sanadaha shamsiga la tiriyo waa 300 haddii bilaha dayaxa la tiriyo bilaha dayaxa waxaa ku jira wax tooman la yidhaahdo oo isdhimayaan bilaha qaarkood markaa 309 bay noqonaysa si kaato ha noqotee qur-aanku 309 buu yidhaha wax kale in lagu warwareego waa laga fiicay 309 sano ilahay wuxuu subxaanahu wa tacaala qul waxaa tidhaahdaa marka ilaahay sow ma sheegin 309 sano hadda ka bacdi dad baa kusii murmaa iyadoo qur-aanka saa u sheegay tiibaa la soo afjaraya waxaa la leeyahay yaa ilaahay ka ogaal badan 3 shay baa laga daba keenayaa oo mid walba uu tusayo alle inaan cid cilmi ku haysata jirin oo arrintaan cid uga aqoon roon inay jirin ilaa bini aadamka waa la kari laaya wax kastoo loo sheego waa soo taageen qul waxaa tala nabi allow allahu ilaahay baa aclamu ogaal badan bimaa muddadii labithuu meesha ay ku nagaadeen ilahay baa u ogaal badan waana idiin sheego waa 309 sano lahu ilahay midaas waa inuu ilahay u ogaal badan yahay midda kale lahu ilahay waxaa usugnaaday aan cidina ku haysan qaybu samaawaati cirarka wixii ku maqan walaada arlada wixii ku maqan cilmi qayb ilahay baa ka warqaba cilmi qaybka alihi ka warqayba baan idiin sheegay waa 309 sano wax kale lama keeni karo midda saddexaad maa lahum uma sugnaa dadka ku murmaayay oo wax kale sheegay tira kale sheegaya min duuni alla sukadiis min wali absir bihi wa asmi' baan u jeedaa midaan way absir arag badana bihi billahi ilahi arag badana way arkid ogaa way ficil taajub baa leeyahay dadka luqada aan naxwaha akhrisan meesha oo kale waa dhibtaa laakiin ficil taajubku wuxuu leeyahay laba siiqo oo qiyaasiya ma afcala bi ma afcala waxa la yiraahdaa afcil bihi marka afcil bihi way marka bidaas waa faacilaba baad la galiyo faacilkii baa la galiyo damirna way hadda asmi' maqli ogaa way absir arki ogaa arag ogaa way bihi billahi ilahi arag ogaa way oo arkid ogaa way yani aragiisa aad macna wa asmi' bihi ilahi maaragtay maqlid ogaa way alla subhanahu wa ta'ala ma allahu mastasna waxa weeye alla subhanahu wa ta'ala cid uga maqal oo kid ama uga arag ma jirto qof samac kasta iyo maqal kasta kan ilahi waa ka dheer ka xoog badan ma allahu masnaanin dadka ku doodaya asxaabul kahfiga min duuni alla sukadiis min waliy ahad waliya oo maxaan ku radaa arrimahooda waligaan hadda waxa laga wadaa wali wax sheego waxyaabaha ay isku haystaan u kala cadeeya ama iyaga maamula walaa yushriku ilaahina kama qayb galiyo fi xukunkiisa ahad qofna oo cilmi qaybkiisa qofna isaga ma sheego alla subhanahu wa ta'ala intuu ugu talagalay uu sheegay rasuushiisa u dhiibaya alla subhanahu wa ta'ala soo marinaya walaa yushriku kama qayb galiyo fi xukmi aw xukunkiisa iyo maamulkiisa ilaahay ahad qofna kama qayb galiyo ilaahay baa cilmiga yaqaan subhanahu wa ta'ala halkan quraanka laga hadlay subhanahu wa ta'ala quraanka waxa la yiri nabiga watlu akhri ma shay uu xiya la waxyooda ilayka adiga oo min kitaab rabbiga kitaabkiisa kamida way akhri baa leeyahay wixii lagu waxyooday oo quraankan akhri baa leeyahay nabiga quraanka inuu akhriyo la faraya la mubadila wax bedela ma jiro li kalimaati ilahi kalimaatkiisa cid kasto wax ku doodaba akhri kitaabka ilahi baa leeyahay nabiga akhris baa la faray waxa uu umirtu ana tulwal quraana quraanka waa dhahay quraanka akhriskiisa cibaadaadku kamid yahay quraanka la akhristo oo la akhriyo دابا وحده أخرتي عبادة لا مبدل واحد بدل ما تشر لكلمات إلهي واحد بدل غير كلام تشر كلمات إلهي سيدا إلهي والشيء بوضع عيا واحد بابا حس كبدل ما تشر بين آدم هذا ولا قصة تقال كلمة إلهي ببدل كلام ولن تجد هل ميسين من دونه ألا سكدي ملتحدا ميل لو ترصده مكان ماركتي ميل قفك وإيشه يعني أقول ما تي ميل أقول لحظة وإيشه كلمة الله سبحانه وتعالى أو ما ينقلوا هدي حالك وقلت مع ضم meel aad u leexatid oo dhibaatada uga iilatid oo ku badbaadi heli maysid multaxadku waxa weeye alxada yani qofku waa leexday weeye multaxada meel qofku maarta u leexdo u weecdo ma jirto weeye taasuna waxay ahayd alla subhanahu wa ta'ala awoodiisa wasbir nafsaka halakana saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa jira rag dan yara waagi waliba ma kala joogay rag dan yara bilaal iyo suhayb iyo khabaab ibn arad rag waxa jira fuqaraa muslimiin oo nabiga intay rumeeyeen maka quraysh ku ciyaarayso iimaanka buuxsamay markaasaa niman kamida carabtii nimankii markaa meesha nabiga la joogay iyo qaar kale oo lagu sheegay ugaasay ahaayeen oo carabti kale u timi baa waxa la ragga kan waliba ma ay ahayn rag deegaanka u dhashay xabashi iyo eeshiyaan iyo dad kale ahaayeen
markaasay waxay yidhaahdeen warnimayahu nimankaan dharku ka uskagsan yahay oo shiiraaya la fadhinta aan la fadhin baan kugu nacnay annaga waa kuu imaan lahay waxna waa kaa dhegaysanahay haddii aad xataa aanu ku dhegaysano aad nala kulantidna waxaa dhici karta inaanu ku rumayno dadka iyagana ku keenno nabiga sal alay slam mar waxaa gashay marka inuu weli waxay yidhahdeen fadhiga buri oo xataa iga taga nimankaana la kulmaaya qur-aanka taa waataan kusoo maray suuratu ancaam maxaa kusoo maray waxaa la yidhi walaa tadrudi aladiina ha burin baa la fadhigaaga intay dad kugu yimaadaan nimankaa naga kici iyagoo yasaaya weliga ha yeelin baa la qur-aanka waa laga diiday taas ibnu jariir saas isugu caadinay labada aayad wuxuu leeyahay taa hore waxay ka hadlaysaa fadhiga in la yidhahdo idinku kaca qoladana baan la shirayaa oo meesha laga kacsho taa ha yeelin baa la ila qofka haddii fadhiga la kici xoogaa ihaanu dareemaya middaana waxay ka hadlaysaa inuu iyaga intuu nebigu ka tago qoladan iswaaweynaysa fadhiga gaarka u sameeyo u tago indhaha dadka u buuxinaysa iyagana u ka tago maya baa laleeyahy iyagu waa inay hadday xaq doon yihiin xaq rabaan adiga iyo raggaana wada jooga waa inay idin yimaadaan haddayan sa ahayn miya haddaba ordin baa laleeyahy maxaad u daba ordaysa xaqba ma rabaan taas wey ilahi wuxuu subxaanahu watacaala wasbir sabir ku xabis baa la yidhi wasbir ku xabis nafsaka naftaada ku xabis oo la joog weye maca aladiina kuwa macooda yadcuuna tuugaya oo caabudaya rabbahum rabbigood bilqadaati subaxdii iyo walcashii galabtii gelin horiya gelin moo ilahay caabudaya yuriiduuna iyagoo doonaya wajhahu ilahay wejigiisa qofka ilahay wejigiisa doonaya jannuu doonaya ma aha maxaan ku radaa ilahay raalika buu doonaya ma aha wejiga ilahay buu doonaya waa meesha ugu wanaagsan buu raadinaya yani qofka diintiisu ilahay wejigiisa ilahay hortiisa markaa tagti wax fiican la kulantid ayuu u socdaa ilahay weji ka rabaaye yani maslaxad iyo maal a ku heshidi wax kale uma socdo yuriiduuna waxay doonayaan dadka galabiisa waxa ilahay caabudaya kuwa aad naftaada ku xabis lagu leeyahay ku xabis wasbir nafsaka naftaada ku xabis maca aladiina kuwa macooda yadcuuna caabudaya rabbahum bilqadaati subaxdii iyo walcashii galabtii yuriiduuna iyagoo doonaya wajhahu ilahay wejigiisa walaa tacdu yay tallaabin caynaaka labada indhood halkan culimadu waxay yidhahan walaa tacdu ha ka tallawsin caynaaka labada indhood marka labada indhood baa mafcuul noqonaya labada indhoodna waa faacil tatniyada alif baa lagu rafciyaa faacil marka weeye walaa tacdu yay tallaabin caynaaka labada indhood yay tallaabin labada indhood yay tallaabin labada indhood baa faacil tacdu labada faacilkeedu waa caynaakta wey walaa tacdu yay tallaabin caynaaka labada indhood canhum dadkan fuqarada yay ka tallaabin nimankan fuqarada ah oo bilaal iyo ka mid yihiin iyo suhayb iyo ka tallaabin labada indhood yay ka tallaabin oo nimankaas xaragoonaya iskabrinaya indhahaagu yay u tallaabin turiidu adoo doonaya ziinat alxayaati dunya nolosha adduunyada dhammaanaysa waa xayaat dunya xayaata dhow wey hadda baaba'aysa wey turiidu adoo doonaya ziinat alxayaati nolol quruxdeed addunya dhowi xayaatada addunya dhowi noloshaan dhow haddaba laga tegaayo ziinadeeda quruxdeeda adoo doonaya nabigu dooni may laakiin dee dadka waad aragteen dad baa waxay jecel yihiin madaxa dadka iskabrinaya inay daba ordaan waxaasoo kale nabiga sal ly sl waa laga diiday waxaa laleeyahay kuwaan diinta raba naftaada ku xabis wey وحبس ولا يود بح كل مرة واحد يران دتك هي السي واحد يدور هذا شغله واحد يدور هذا حرفته واحد يدور هذا ولا تدعها الداعي إلهي بعدها ولا تدعها الداعي من دولها الداعي أغفلنا عن هالماسيني قلبه قلب جيس عن ذكرنا حسك يجي إلهي بحس معي ذنبك ملها كواس ولا تدعها الداعي من دولها الداعي أغفلنا عن هالماسيني وقفلك جهرني قلبه قلب جيس عن ذكرنا حسك يجي واتبع الراعي من كاسبه هو واتبع الراعي هو من كاسبه هواه هواديس الراعي وحنا نفتيسه جعشها قفك مركو إلهي ذكريسا كتغو wax alla wixii naftiisu jeceshay uu daba galaya wax kale oo raba ma wax kale maqli maayo oo wakaana hadana ahaaday amarkiisu furudan xad gudub qofka ilaahay dhigrigiisa ka tagay hadana naftiisu waxa jeceshay raacay wax uu iyo dusha ka fuulay dulmi uu sameeyo mooyaan wanaag bal uu arki maayo wakaana amru taladiis oo dhan ay ahaatay furudan xad gudub wax walba ka khaldan yihiin waqul waxa tiraahdaa alxaq xaq nimankaan oranaya nimankaan naga cayl ama anaga meel gaar nagu shiri dhahaya waqul waxa ku tiraahdaa nimanka alxaq xaq min rabbikum xaq rabbigiinu ka yimi arrintii aad ii weydiisateen waa la iga diiday ilaahay aniga kitaabkaan soo dhibay iga diid dheh qul waxaad nabi allah alxaqu xaqu min rabbikum xagga rabbigiimu ka yimi faman qofkii shaa doona falyumin xaqa ha rumeeyo waman shaa qofkii doona falyakfur ku gaalo khiyaar baa qofkii salasiyo qofkii doonaana ha rumeeyo oo ha ku soo biiro dadka nabi ilaahay maxamed la jooga qofkii doonana ha diido ha gaaloobo qof uu khasbay isaga laga gelinaya ma jirto ay ilaahay uma baahna ilaahay subhanahu wa ta'ala taas marka waxa weeye faman shaa falyumin wa shaa falyakfur labada qoladii marka waa la kala doortay xaq iyo baadilka waa la kala doortay qoladii baadilka dooratay baa la inoo soo hormariyay ilaahay wuxuu yiri inna annagu rabbi baa yiri inna annagu a'tadna wa udiyaarinay bil zaalimiina kuwa zaalimiinta xaqa dulmiyay oo ilaahay dulmiyay oo rasuushii dulmiyay oo kitaabka kutubta dulmiyay oo diiday maaragtay inay xaq raacaan oo dadkii ilaahay rumeeyana dulminaya saa u dulminaya inna annagu a'tadna waxaan u diyaarinay lil zaalimiina naar baan u diyaarinay naartu axaada uu koobay bihim iyaga suraadiquha haydaankeedu uu koobay meel uga baxaan male
naarta yani suraadiqda waxaa la yidhahdaa dadka qaarkiina daahiye yidhahda lakin waxaa la yidhaha shaygaa wax lagu wareejiya se beeraha ama gurya wixii waxa lagu wareejiya waa dayrkii wey dayrkeedaa koobay suurkeeda suur ama xaydaan waxaa tidhahdidba kaas ayaa kooba meel naarta ay uga baxaan heli maayaan axaadda naartu axaadda u koobay bihim iyaga suraadiquhaa xaydaankeeda ayaa koobay oo hareeraha ka maraya meel uga baxaan mali nimanka daalimiinta taasaan u diyaarinay u leeyahay waxaan u diyaarinay nimanka ina anagu actadnaa waxaan u diyaarinay lidaalimiina naaran baan u diyaarinay axaadda uu koobay bihim iyaga suraadiquhaa xaydaankeeda uu koobay naarta xaydaankeeda baa koobay wey wain yastaqi markaa naarta way ku gubanayaan qofka hadduu gubto kululaadana qabow iyo biyo u baahanaya wain yastakiisuu hadday gargaar dalbaan oo biyo yidhahdaan biyo hana la siiyo yuqaasuu waa lagu gargaarayaa bimaa-in biyo kalmuhli yani muhli oo kale ah muhliga waxa weeye waa shay aada u madow aadna u kulul wey ka cukri zayt bay yidhahdaan sida saliidda markii aada loo karkariyo maakaalka inta dhareerka ka daadanaya aadna u madow sida maakaalkana u madow haddana aad u kulul taas wey ayaa waaa taasaa looga dhigaya biyo looga dhigaya dhareerkaa baashaas saliidda gufarkaa saliidda oo kale oo hadda xaraaradiisa ilahay u ka warqabo ayaa laleeyahay hooya kuwa kan cabba mar allaale wejigooda markay intaa usoo jiraan baa wejiga marka hore hilibka ka yaacaya wejigaa diirmaka aayaddaa noo sheegaysa ilah wuxuu subxaanahu watacaala kalmuhli cukaru sayidka waa la yihahdaa waxaa kaloo layahay midabkiisa xoolaha markay meel ceel laga waraabiyo oo biyuhu ku biiraan oo ay dac noqdaan biyuhu marka dee madow bay noqdaan kuwaasoo kale muhli waa la yihahda saasoo kale wey wax saa u eg laakiin xaraaradan xaraaro dhaafay kulayl wain yastakiisuu hadday waraab dalmaan gargaar dalmaan iyo waraab yuqaasuu waa lagu waraabinayaa bimaa-in biyo kalmuhli sida cukaru zaydka oo kale ah kulaylka iyo madowgaba muhligaasoo yashwi wujuuha wajiyaasha maqaarka ka diiraya yashwi gubaya ama solaya alwujuuha wajiyaasha oo maqaarku kala yaacay kala cararaya markiiba kulaylkooda bisa waxaa baas lahaaday asharaabu sharaab baa baas lahaaday huwa kan baa baas lahaaday midka dambiga iyo xumaanta lagu khasisaya waa midkaan sharaabkaan wey sharaabkaana baas lahaaday wasaa-ad waxaa xumaatay hiya waa iyadaa u xumaatay naartaasaa xumaatay wey murtafaqan meel lagu suxulaysto oo raaxo laga raadiyo ya waxaa lii qof naar ku jira suxul mudan maaye waxaa laba sidood culimadu sheegaan waa lagu tahakumaya iyagaa lagu jeesjeesaya qof naar ku jiro gubanaya rafanay barooranaya miyaa jir suxul mudanaya oo qof nasanaya iska dhigaya ma jirto waxaa kaloo la yidhahdaa aayadda ahlu jannaha baa murtafaq sheegtay taasaa mushaakalo baa la iska horkeeya isku aadinaya janna meel lagu suxulka lagu mudmuto lagu raaxaysto janna ugu fiican murtafaqa aayadda kale ku iman doontaa wey taasaa la barbar dhigayaa baa layihi naartu maaha meel suxula lagu mudmuto oo lagu raaxaysto maaha ilahi wuxuu subxaanahu watacaala ina aladiina duulkii aamanuu rumeeyey lamarkii leeyay faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur soo laba qolo maahay qofkii doona ha rumeeyo qofkii doona ha gaaloobo qoladii gaalooday waa soo sheegnay abaalkoodii qoladii muuminiinta ahaydna waa kuwa kale ilahi wuxuu yihi ina aladiina duulkii aamanuu rumeeyey wacamiluu camal falay asaalixaata acmaal wanaagsan ina anagu laa nudiicu dayici mayno ajra man qof ajarkii axsana hagaajiya camalan xagga camalka hagaajiya qof camalkiisa hagaajiyay ajarkiisa dayici mayno ilahi subxaanahu watacaala ulaaika duulkaasi iimaanka iyo camalka saalixa laga helay oo aan ajarkooda ilahay dayacayn ilahay ajarkooda dayacayn camalkan hagaajiyay ulaaika kuwaasi lahum waxay leeyihiin jannaatu jannooyin bay leeyihin ulaaika kuwaasi lahum waxay leeyihiin jannaatu cadnin nagaadiga jannooyinkaasi leeyihin cadnigu waa negaanshaha weeye meel aan laga guurin yani jannaatu iqaama wey lahum waxay leeyihiin jannaatu cadnin nagaadiga jannooyinkiisi bay leeyihin lagu nagaanayo tajri waxaa soconaysa min taxti iyaga hoostooda alanhaaro webiyaal baa soconaya webiyaal casala malab ah webiyaal khamro ah webiyaal biyo ah iyo webiyaal caana lebed baa soconaya yani mathalu janati alati wucida almuttaquuna fiiha anhaaru min maain aayada wata dhahay alla subxana wataala ka warramayo tajri waxaa soconaysa min taxtihim hoostooda alanhaaru daaraha ay degan yihin saraha ay degan yihin dabaqyada ay degan yihiin iyo beerahooda hoostooda waxaa qolqolaya alanhaaru webiyaal taas waxa weeye waa meesha inay jannooyin lagu nagaanayo degan yihiin oo qurux badan webiyaasha qolqolayana waa barwaaqo kale oo nooc walba wax la cabiyo wax la cunaba yuxallowna waa haddana waxa wey halkan dhar baa loo labisaya yuxallowna waa lagu marashiinaya ama dhar waa loo labisayaa fiihaa jannada gudaheeda min asaawira jinjiyaal baa loo labisaya jamcu aswira weeye waa jinjiyaasha la xirto allahu akbar waxaa la dadka madaxdaabaa waaga hore ha u badnaadeene baa waxay xiran jireen waa yadaas inaga diinteenu ragga uma ogola dahabka iyo waa aragtay ragga in wax xirto looma ogola dahabka iyo xariirta waatan laga xarimin raggeena dumarka bal xataa ninka muslimka ama qiimaha le isuma ogola inuu hadduu arko nin waxaa xiran wuxuu arkaya nin dhaqan xun uu yahay si kale ugu fahmayaaba saas daraaddeed aakhira marka la tago horta shaqo ma jirto marka dhaqanka dunida yaalla iyo dhaqanka aakhirana waa kala duwan yahay xaraga wey waa la xaragaysiinaya
ilahay wuxuu subxaanahu watacaala yuxallawna waa loo labisayaa fiiha jannada gudaheeda min asaawira jinjiyaal min dahabin dahab ka samaysan ayaa raggaa loo labisayaa wayalbasuuna waxayna xiranayaan oo labis ka dhiganayaan hiyaaban dhar khudran cagaaran jannada dharkeedu waa cagaarka soo indhaha uma fiicna jannadao dhan baa indhaha u fiican dhar cagaaran ayaa loo xiraya khudran saas weeye wayalbasuuna waxay xiranayaan hiyaaban dhar khudran cagaaran kaasoo min sundusin xariirta teeda jilicsan ka samaysan sundusku waa xariirta naacimkaa wey iyo wa istabraqin xariirta teeda adag wey maa qalida min alxariir xariirta mideeda adag wey ka samaysan muttaki'ina way dangeegsanayaan suxuuladay mudanayaan fiihaa jannada gudaheeda calal araa'ika sariira korkooda araa'igtu waa jamcu ariikadan waxaa la yahaa sariirta cursiga mar allaale sariir baa la dhigayaa gabadhii aroosadii iyo ninkii gabadhii baa halkaa laga soo jeedinayaa waxaanoo dharaa lagu dadaya sida shandarwadoo kale baa la dusha lagaga shixnadaya wax kasta oo qurux iyo ubax wax kastoo la dhigaya meeshaasaa lagu shixnadaya waxaa la rabaa meesha markii qof kasta u arkay inuu ku indha daraandaraa la raba sariiro noocaasa oo ilaahay ogyahay maaha midda beenta bini aadamku samaynayo yaryartaa maaha waa kuwa ka fiican waxaas oo dhan sariirahaas ayaa waxa way alla subxaanahu watacaala ayay ku dangegsanayaan ku suxulaysanayaan nicma waxaa nicmo lahaaday athawaabu thawaab baa nicmo lahaaday huwa thawaabkaana nicmo lahaaday jannadaa laga helaayo abaalmarinta noocaan oo kale ah waxasunad way wanaagsanaatay hiya jannadaa wanaagsanaatay wey murtafaqan meel lagu suxulaysto oo lagu nasto oo qofka ku nafiso meeshaasa u wanaag lahaatay alla subxaanahu watacaala taasuu alla yidhi ilahi wuxuu subxaanahu watacaala watlu akhri ilahi wuxuu subxaanahu watacaala walaa taquulanna ha dhihin lishayin shay ha dhihin ina anigu faacilun waan samaynaya daalika shaygaa qadan berri baan samaynaya hadda ka bacdi baan samayn doonaa ilaa an yashaa allahu ilahay inuu doono mooyaane wadkur xus rabbaka rabbigaa xus idaa nasiita haddaad insha allahuda ilowdid rabbigaa xus xataa culimadu waxay yidhahdeen haddii aad insha allahuda ilowdid xataa wixii aad ka tagtay hadduusan wax kaaga soo noqon ee aan wax kaaga hagaagayn insha allah waxay ku taraysaa dambigii lagu raacan lahaa meesha ka baxaya maxaa yeele insaanka ilowshaha waa loogu cudurdaaray markuu xusuusto waa inuu wuxuu ilaaway dib u sameeyo salaada haddaad ilowdid hadhow haddaad tagto dambi laguma haysto labada shay cudurdaarka salaadu haysato waa inaad hurdo kaaga tagto iyo in ilowsha kaaga tagto waxba laguma haysto waqul waxaad tidhahdaa casaa wuxuu mudan yahay an yahdiyani inuu hanuuniyo rabbigay liaqraba wax ka dhow min haada ahlu kahfigaan qisadooda wax kasii dhow oo intaanu cilmi iyo qisas kitaabkan lagu soo dejiyey ilaahay wax kale kasii dhow inuu igu hanuuniyo rashadan inuu maaragtay igu hanuuniyo rashadan oo toosnaana wey walabithuu way nagaadeen fii kahfin godkoodii bay ku nagaadeen ahlu kahfigii dadkii ma ku jiray kahfiga walabithuu way nagaadeen asxaabu kahfi fii kahfin godkoodii bay ku nagaadeen 300 siniin oo sanadaa wey wasdaaduu way ku kororsadeen 9 bay dheeraad la noqdeen wey 9 bay kororsadeen qul waxaa tirada allahu ilahay baa aclam ogaal badan bimaa labithuu intay meeshaa ku jireen lahu ilahay waxaa u sugnaaday qaybu samaawaati samaawaadka wuxuu ku maqnay walardi intaba ilahay baa qaybka ka warqaba cid kale loo oga ma jirto absir arki ogaa weye bihi billahi ilahay arki ogaa واسمع مقل اوغا الهي سبحانه وتعالى عد مقل كو هيستي ارغ ما جيرو ما اللهم وسغنا dadkaas ku dooday arimahan min duun alla sukadi min wali ahad waliya oo arinta u kala waxaya ama u maamula wala yushriku ilahi kama qayb galiyo fi xukmiisa ahad qofna kama qayb galiyo iyo cilmigiisa watlu akhri nabi allah ما شيء وحي اللي وحي إليك أديك من كتاب ربك كتاب كيسا آخر بقى النبي القرآن كآخر بقى سجوا حول كوكل عضينية لا مبدل واحد بدل ما تشري لكلمات إلهي ولم تجد هري ما يسمى دوني ألا سكري مرتحدا ما الله إيش الله لاحظ الله وعظه أو دماغه اللي جاب حصل هري مسي إلهي ما دماغه خاب صاري كروي هديني بكوي ما الله بعض عربي مالك لو مع الله عربي ما تشري واصبر وحبس نفسك نفتها مع الذين يكون معه يدعون التوبة يا رب عابد يد ربهم ربي يقول بالغداة الصبح دي والعشي قلبتي يريدون يقودون وجه جيسا ولا تعدوا هكتلامن عيناك ولا تعدوا يي تلامن عيناك لما إنه عمل يجا تريد أدو دنيا زينة الحياة الدنيا زينة نولش الحياة نولش الدنيا لو قروح ده أدو دنيا والله ما راح مارتي إنها هو تلامن ومؤمنين مارتي فقراء هكتلمون وإنها هكتلوسين ولا تضع ساسي هاي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر مركو صامري وهي أبو بكر أنتو صامري وحكويرين يجا وحي هذا رج كم إذا فقراء المسلمين ما وحي هذين waxay arkeen Abu Sufyaan oo muslimiinta dagaalkii Uhud aad ula dagaalamay muslimiinta oo soo islaamay sidee wali Abu Sufyaan ma nool yahay markaan waa soo islaamay ma akhad siyufullahi min adullahi ma akhadaha bay yiraahdeen markaas kelmadda marka ka maqleen bay caro waxa Abu Bakar baa wuxuu yiri taquluna hada li sheekh Quraysh hogaan odayga Quraysh miyaa saa ku leeyihiin maanta bay kelmadda marka Abu Bakar uu iskala kaftamay hadal dhibaato u jeeda maahay hadhow nabiga u sheegay kelmad baas ayaga soo dhacay rasuulka Ilaahay markaasuu yidhi haddaad nimanka ka caraysiisay rabbigaa waa ka caraysiisay anaa la ii qabsaday intaan dabca inaan ka kaco nimankaan la fariisto baan ila kama tegi kartid
هاي ما حد وقعري ما حد سوى هذا أرد أبو بكر واكن أو ما أنت اللي عذاب مركز من يعرضين ما يا أبو بكر وعلى أصحاب أبو بكر كما عرون شري سبب كنت واحد أوجه قلبي جيسا ما بقى حين بقى maxaan ku raadnay waxyaabo uurka ku qaado oo xumaan iyo laga fisho dadka dhan jecel yahay waa qofna uusan xumaan ka filan buu ahaa saa daraaddeed waxaanu ku qabno ma laba yiraahdeen saasi ku yiraahdeen Allahu akbar wala tudhiha adeecin mamduulha adeecin nabi allah aqfalna aan dabool ma aan law siinay oo qafladu waxa way qofka moogitaan ku dhaco way ولا تدع من أحد أدعي أغفلنا أن موجسنا قلبه وقلبه عن ذكرنا حسك يجا وتبع هوا هوليس وكان وهذا أمر كيس فروض الحد جذب وقول وحتى الحق وحق من ربكم هذا فما شاء قفك دونا في اليوم منها الرمي وما شاء قفك دونا في الكفر قالوا إن أنا وعتدنا وأضيارنا للظالمين هو الظالمين نار بارو ضيارنا أحد نارته أحد كوبتوي بهم يجا بهم يجا كوان قالوا بي سرادقوا هذا كوبي حد وحى كوبي بهم يجا سرادقوا حيدان كذا كوبي وين يستقيسوا haddii ay gargaar dalbaan oo waraab dalbaan waqaatu waa lagu waraabinaya bima biyo kalmuhu sida muhligaas oo kale oo karu zayd oo kala yashwi kaaso yashwi wujuha wajiyasha hoolaaya oo gubayo bisa waxa baasl ashrab cabitaan lacabo huwa kaasa baasli wasaad wayna xumaatay hiya naartu murtafaqan meel suxulaysto in alladina aamanu wa amilu salihat ku ilaahi rumeeyo amal salihan iimaan laga helay amal salihan laga helay in aanu walaa nudicu day'amina ajra man qof ajrka ahsan hagaajiya amalan xagga amal أولئك دول كاس لهم وحيليه جنات عدن نجاشها جنوي كسبيليه تجري وحص عن من تحت موصل النهار وبيا يحلون واللجوم مرشية يعمل لجول لبسها فيها جمال جولها من أساور الجنجيان من ذهب كسميسن ويلبسون والحيران يثيام النار خضرا وعجارا من سدوس كسميسن حريرة مدة شلع سن شلعي أرجع بالله بان حريرة والسبرق حريرة مدة أرجع متكئين يو الدنجيك سنة يوسف الله سنة فيها جمال جولها على على كسريره لا شيء هذا نعمة وحى باص نعمة وحى نعمله الثواب نعم الثواب ثواب نعمل هذا هو كاسة ونعمل هذا وحسنا دوي وناكس هي جنده متفقا من الله سبحانه والله أعلم